xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ay ka dambeeyaan isku dhacyada dhexmara ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Cabdiwaab Xuseen Muxiidiin ayaa inoo faahfaahinaya. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ayaa dagaal shalay ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ku dhexmaray degmada Hodan waxa uu ku eedeeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isagoona hoosta ka xariiqay in xubno ka tirsan dawladda federaalka ay ku lug leeyihiin isku dhacyada ciidamada ka wada tirsan militariga Soomaaliya ku dhexmaray xerada General Golden ee magaalada Muqdisho. meel dheer laga raadin maayo kuwaasi waa kuwa qaarkood ka mid ah dawladda adeega kala duwan ama ha noqdaano kuwa dhinaca fulin ama ha noqdaano dhinaca maaragtay golahayaasha kale ama ha noqdaano ciidamada laftirkooda dhexdooda oo dad ayaa isu ekaysiinayo dad wadaniyiin ah oo ummadana dhinac waliba ee marka adiga ee hadaladooda macaan la dhageysto oo loo arkayo dad markaasi inay wanaaga ay hormuud ay yihiin laakiin haddana ay u dhacayso marmarka qaar marka xaaladahooda diibli loo eego inay lugooyada qayb ay ka yihiin muuqanayso ayaa ummad Soomaaliyeed aad maartay uga dheregsan tahay. Maxamed Cumar Dalxa ayaa sidoo kale wax laga xumaado ku tilmaamay in iyadoo dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya la wareegtay ciidamadii Imaaraadku tababaray sidoo kalena sheegtay in xuquuqdooda ay bixinayso ay ciidamada kala xakameyn weyso. shalay dawladdu waxay qaadatay go'aan aad u qiimo leh oo aad moodid geesinimo mid ka turjumayo oo ay kula wareegtay maanta xero ciidan oo sidii ay u dhacday amoortaasna ee dadka caalamka xataa ay u dheega taageen oo shalay meeshii loogu khudbeeyay si maaragtay geesinimo leh oo ayaga ay shucuurkooda usoo bandhigayeen oo caalamka maaragtay YouTube-yada meel waliba ee bahda warbaahinta ayaga ay gaarsiisay moralkooda oo cirka runtii iyagoo u muujinay dadka Soomaaliyeedna dhiirigelinayeen in maartay maantana ay ku xigsato isla shalay iyadoo aanan maanta ka soo wareegin 48 saacadood in la yiraahdo qalalaasay. shalay ayaa ciidamo ka wada tirsan militariga Soomaaliya waxa ay ku dagaalameen xerada General Golden ee magaalada Muqdisho waxaana taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiwali Jaamac Xuseen Gordo uu sheegay in gacanta lagu dhigay ciidamo isku dayayay in ay